Mid ka mid ah dalalka kala duwanaanshaha dadeedka, diimeedka, afeedka iyo dhaqankaba aadka ugu badan yahay, haddana haysta nidaamka ugu xooggan iyo dhaqaalaha ugu xooggan Koonfur Bari Aasiya iyo guud ahaan waddamada Muslimiintu ku badan yihiin. Waa dal ka mid ah waddamadii ka dhaqaala batay dalalkii gumaystay sida Brazil oo ka dhaqaala badatay Portugal, Hindiya oo iyadana ka dhaqaala badatay UK. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa dalka Indonesia. Intaanan muuqaalka u gudagelin, like saar videogan, wuxuu naga saacidi karaa YouTube-keena dad badan gaarsiiyo. Magaciiguna waa Cabbaas Mustafa. Indonesia waxay ka mid tahay dalalka ugu saameynta badan dunida oo ugu awoodda badan, waxaana u sabab ah dhaqaalaheeda aadka u xooggan iyo tirada dadkeeda oo aad u badan. Waa dal jasiiradeedka ugu baaxadda weyn dunida, ahna dalka 14aad ee caalamka ugu baaxadda weyn. Sidoo kale waa dalka afraad ee ugu dadka badan dunida, ahna kan saddexaad ee ugu dadka badan Aasiya. Tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 270 milyan oo qof. Waa dal aad u dad badan oo koraya tirada dadkiisu markii laga yimaado inuu yahay dalka afraad ee caalamka ugu dadka badan. Sidoo kale waa dal ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dunida, 225 milyan oo muslimiin ah ayaa ku nool dalkaas. Waa dal kala duwanaanshaha isirka, afka, diinta iyo dhaqankaba oo aad ugu badan yahay. Waxaa la tilmaamaa qowmiyadaha Indonesia ku nool inay tiri ahaan ka badan yihiin 600 oo qowmiyadood, loogana hadlo in ka badan 700 oo luqadood, balse dalku leeyahay hal luqadood oo nidaamka dalku ku shaqeeyo oo ah luqadda Indonesia oo isku fahmaan dadyowa kala afka duwan. In ka badan 200 milyan oo bulshada dalkaas ah ayaa ku hadla luqadda dalka. 633 qowmiyadood oo Indonesia ku nool waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah dalalka leh kala duwanaanshaha isirka ee ugu badan caalamka. 700 oo luqadood wax ka badan waa in looga hadlo Indonesia, 10% luqadaha dunida. Qowmiyadda Japaneeska ayaa ah qowmiyadda ugu dadka badan guud ahaan Indonesia oo dalka ka ah 41% oo dhan 100 milyan oo qof. Waxayna degaan jasiiradda Java oo ay ku nool yihiin in ka badan kala bar dadka reer Indonesia oo dhan 151 milyan. waana jasiirad baaxad ahaan ka yar gobolada Bari iyo Sanaag, ahna jasiiradda ugu dadka badan dunida. Waa dalka ugu dhaqaalaha badan waddamada Muslimiintu ku nool yihiin, ahna kan 14aad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan. Waana dalka shanaad guud ahaan Aasiya, ahna kan koobaad guud ahaan Koonfur Bari Aasiya. Waa xubin ka mid ah kooxda 20-ka ah ee warshadaha ku horumaray iyo wax soo saarka G20-ga. Jakarta, caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalkaas. Jakarta iyo nawaaxigeeda oo ah dad u soo shaqo doonta, waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 35 milyan, taasoo ka dhigaysa magaalada labaad ee ugu dadka badan dunida kadib Tokyo. Waa xarunta ganacsiga, aqoonta, hal-abuurka, dhaqaalaha, maamulka iyo dhaqanka Indonesia iyo guud ahaan Koonfur Bari Aasiya. Waxayna magaaladaas oo qura ka dhaqaala badan tahay isku darka dhaqaalaha Kenya, Ethiopia iyo Uganda. Dalkaas 633 qowmiyadood ku nooshahay, 700 oo luqadood wax ka badan looga hadlo, dhowr diimood laga haysto oo shanta caalamka ugu waaweyn ay ka mid yihiin. Waxaa ka dhexeeyo hal sharci, hal luqad, hal dastuur iyo hal calan iyo hal nidaam. Waa dalka saddexaad ee dimuqraadi ah ee caalamka ugu dadka badan kadib India iyo Mareykanka. Anagoo leh hal diin, hal luqad iyo hal qowmiyadood ayaa isdagaalna maalin walba. Laakiin ogow, dal waxaa dhista dadkiisa, ha sugin dalkaaga inuu ku dhiso dad shisheeye.